السلام عليكم سو dhawaada asxaabi dunida iyo boqoradii gumaadka dunida waxa ka dhacay boqorro kumaaday bal maanta aynu dul istaagno mid ka mid ah boqoradii gumaadka Joseph Stalin waxa uu ku dhashay magaalada Los Angeles sanadkii 1887 bishii December 18 wuxuu haragii dhaliyay kacaankii shuuciga ee Lenin hogaaminayay sanadkii 1917 waa madaxweynihii Soviyetkii burburay noqday 1922 Ruushka maanta markuu dhintay hogaamiyay kacaankii shuuciga ee Ruushka Vladimir Lenin kuwaasi oo aan xukunka ku iman doorasho shacab laakiin afkambi kaga qaaday boqorkii xukumayay Joseph Stalin waxa lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa madaxdii shacbigooda xasuuqay muddadii uu xukunka hayayna waxa lagu qiyaasay tirada dadka uu gumaaday 20 milyan oo qof Joseph Stalin waxa kale uu dilay dhammaan xubnihii kacaanka la dhaliyay kadib markii uu dhintay hogaamiyahoodii Lenin isagoo ka cabsi qabay in xukunka ay ka tuuraan dhammaan ragga ay iska soo horjeedeen Stalin waxay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa ka baxsaday ugaarsiga waxaana jiray kooxo badan oo loogu talagalay inay dadka laayaan waxaana ka mid ahaa kooxihii Cheka oo qalbaysna isla markaasina u diyaarsanaa khaarijinta dhammaan dadka ka soo horjeeday hogaamiyaha dhiig badan ayuu qubay sidoo kursiga ugu faraadayg lahaa xisbiga hanti wadaagga ahaana waxa uu galay gacanta qof qura waxaana afka ciidda loo diray dhammaan nidaamka cadaaladda iyo maxkamadaha laga soo bilaabo sanadkii 1929 ilaa 1953 oo ah muddo ku dhow rubuc qarni ayuu Joseph Stalin lug iyo gacan iyo masqax isugu geeyay sidii ay taladu isaga ula joogi lahayd waxaana intaa u dheer inuu waqti badan geliyay sidii midowgii Soviet uu noqon lahaa awood aan la haweysan karin oo aad looga boqo keligii Taliyaan aan xariista laga dareemin waxa uu sabab u noqday dhimashada in ka badan 30 milyan oo dadkiisa ah waxa kale oo la sheegay inuu dilay gabadhiisa oo uu sumeeyay kadib markii ay hogaamintiisa saluug badan ka muujisay maadaama iyadu laftigeedu ay ka mid ahayd xisbiga shuuciga xubnihii ugu firfircoona Stalin waxa uu dhintay sanadii 1953 waxaana ku furmay dhiig bax dhanka masqaxba ah iyadoo ilaaladiisa ay gurigiisa isagoo sakaraada ugu galeen waana lagu daweeyay laakiin waxa ay maalmihii u dunida maca salaameeyay waxa jiray waqtigaas caasimadda Moscow dad aad uga xumaa dhimashadiisa iyo dad badan oo kale oo aad ugu farxay dhimashadiisa daawade halkaas aynu ku soo koobinaa mid ka mid ah hogaamiyaashii kacaanka gumaadka ee soo maray caalamka xogahan oo kale soo badnano fadlan fiidowga like saar siina share garee wassalaamu calaykum